السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داوديال إدريستيال كسر هذا channel كان حيس جروبس إن ما أنتوا حققت دونا إن 10 ديادو مهمة إن أنا كسبسن HTML وعشر كيس الدحات عشر الامتحانات هاي هوري waxaan soo qaadanay introduction cashirka labaadna waxaan ku soo qaadanay runtii waxyaaba introduction la xiriira iyo waliba aan soo sameyn lahayn fast web page-ka ayaan ku soo qaadanay maanta waxaan qaadan doonaa saddex wadooyin oo muhiim ah ama cashar oo muhiim ah waxaan qaadan doonaa la yiraahdo background color si loo sameeyo waxaan kala qaadan doonaa la yiraahdo space ama break waxa la yiraahdo waxaan kala qaadan doonaa space kan labo qayb doonaa mid breakisa oo u dhaxeeya space caadi la sameynayo oo aad rabto tusaalaan inaad sameyso laba paragraph ama laba mawduuc inaad space u dhaxaysido midka labaad waxa waaye mawduuca dhexdiisa ayaad rabtaa inaad xarfaha u dhaxaysiso space marka waxaan qaadan doonaa saddexdaas mawduuc aan qaadan doonaa insha Allah waxaan soo kacaynaa la yiraahdo notepad++ galka imaano iyo aan dhayna marka tag HTML kan furaynaa HTML aan leenahay waxaan furaynaa tag yahay title waxaan furaynaa la yiraahdo head aan furaynaa si waxa aan iska fiirin waxaan furaynaa la yiraahdo title waxaan ku qoranaa hsgroups.com ما qorno title ka waa inaan xirno marka inta sameysid waxaa sameynaysaa waxaa furaysaa body kadib badiga xir head ka xir sidoo kale HTML xir marka inta sameysid waxaan u baahan inaan sameyno background color marka halka badiga tag dhexdiisa ayaad furaysaa space yar leedahay waxaad leedahay marka bg color marka waxaad leedahay equal leedahay calaamadan labada taabanaysa waa shiftiga iyo calaamada u dhow oo double sign ka waxaad leedahay marka waxaan leenahay pink color yiraahdo ama si loo wada arko waxaan leenahay armaa green color yiraahdo waad xiraysaa kadib waxaad leedahay okay kadib waxaad leedahay control s soo gareyno aan ku soo garan la yiraahdo hsgroups.html intana leenahay okay waa kana marka soo kacayna fileka soo jeedin title-ka ka soo koray intana waxa ku qoran waxa la yiraahdo background-ka bedelay oo aan ka dhignay green marka aad bedeli kartaa blue waa ka dhigi kartaa waxa kale oo ka dhigi kartaa guduud ka dhigi kartaa waa adiga dooqaad ku xiranta waxa sameeyna la yiraahdo h1 la yiraahdo ama mawduuca ka paragraph ku aan sameeyna la yiraahdo haleen wax kale tusaalahaan oo kale hsgroups intro okay h1 xirayna marka inaa xaqasab waxaan furna marka paragraph oo b ah waxaan ku oranaa soo welcome to hsgroups tutorial hsgroup tutorials marka waxaan sameeynaa saan u badino kana copy ka sameeynaa control c da and runtii c body tutorial kana saan space na sino way halkaan sidoo kale marka video xirina marka paragraph-ki control s da marka hada browser-kaadi F5 da marka soo waxa sameeyay header-ka sameeyay ama highlight kore waxa uu ku qortay paragraph ama qoraalka yaraayo qaybta kore sharxay waxaan doonayaa inaan sameeyno okay waxyar qoraalkan hoos u dhigayna aan sameeynaa kan noo weynaysan warano okay control paste aan si badino control s da marka okay F5 da marka
وجد أن قرال كي هذا حتى إسكوس قرني إسكوموس قرمي وحدونينا إن عنده welcome حيز جروبس ماشي أنا قرناته qaybtan kan ay hoos aado ay sadarka hoos ay marto marka waxaan u suurta gelinayaa wax la yiraahdo PR ama breaks la yiraahdo salaano kale hadda halkaan aan ka jarno halkaan aan ka jarno halkaan aan ka jarno waxaan leenahay waxaan leedahay marka PR waxa la yiraahdo isticmaalaysa sidoo kale halkaan la soo koobiyay halkaan sidoo kaleeto halkaan sidoo kaleeto halkaan sidoo kaleeto halkaan sidoo kaleeto imale kuwan kale soo dileedina kaanta asida marka kaanta ayada marka waxa ujeedaa in aad isku soo qornay marka waxaan doonayaa inaan wada isku dhow yihiin waa isku soo qornay marka wax ka sameeysid BR tana sii badanaysa hadda waa hal BR san filayo control C D halkaan la ku sidar kuna sidar sidoo kale halkaan noo soo qaad labadan control C D halkaan ku best garay tanna halkaan ku best garay kanna halkaan ku best garay kanna halkaan ku best garay control S marka processor keenu ali F5 marka soo ujeedid dhammaantood space weyn ayaa u dhaxeeya marka qaabka aad u sameynaysid adiga waaye laakiin waxaan ku tusayay sidaad u sameyn karto tagga waxaan baranaa waxa la yiraahdo space qoraalka dhexdiisa salaano kale halka welcome to his group tutorials ayaan rabnaa inaan u dhaxaysiino space welcome ta iyo inaan u dhaxaysiino labadaas inaan ka dhigno laba qaybood waxaan leenahay shift iyadoo haya ayaad waxa taabanaysaa على number 7 عملت سوق صباحي سرنتي هلا مركا NSB يلا مركا اوكي كوب دمع رمضان على مركا كنترول عمل سواني سوا كوب جري مركا كوب ده اوكي كوب control S ne browser ka tag F5 marka aye halkaan marka waxa ka qaldan marka sida loo saxaa okay ila soco okay soo saxno qaladkaas ku laba notepad plus halkaan waxa ku qoran NSB halkaas enter iyo s dhaxeeda ku qortaa B ku qor marka okay halkaan na geli control F da marka browser ka tag F5 da marka soo jeedid sadarka labaad ayaan hadda ku sameynay spacekaas sadarka saddexaad iyo sadarka labaad waxa u dhaxeeya farqi soo jeedin marka maxaan sameynay waxaan sameynay head waxa la yiraahdo H1 ama qoraalka muhiimka ama topic ama mawduuca goobad ah waxaan sameynay kale waxyaabo qeexitaan ah inaan qeexino mawduuca koobaad oo ah paragraph la yiraahdo waxaan kala sameynay la yiraahdo spacing ayaan sameynay inaan qoraalka si dhaxaysiino sidoo kale aan sameynay la yiraahdo space kaleeto oo kala durjinaya qoraalka marka saas ay u sameyn kartaa maanta cashirkeena inta ay ku yahay insha Allah waxaan filayaa عشرة كفايدة سي شير جراي سبسكرايب للقناة كان ساعد ولا ساعة 10 ضمبه إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.